ahaatee dadka ka farxi dadweynaha oo weliime iyo casuumo dabiixa ah u sameey ayuu dhahay sala allahu calayhi wasalam. xadiisku waxaa laga qaadanaya meherka yar inuu khayr iyo wanaag badan yahay. maca daalika calaa wasni nawaad waa laftimireed culayskeeda oo dahab ah ayaa looga dhigay meher. kitaabu talaaqii kitaabkiisii waaye waa xal kamida xalalka lagu xaliyo usrooyinka haddii dhib gaaro. xadiiskii 323 can cabdullaahi bni cumar radia allahu canhuma annahu cabdullaahi ayaa talaqa wuxuu furay imra'atahu naagtiisa wahya xaa'idun ayadoo dhiig caadaa qabta. fadakara dalika arintaa wuxuu u sheegay cumaru lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fataqayada fiihi waa uu ka xumaaday rasuulullaahi rasuulkii ilaahi sala allahu calayhi wasalam. uma kabacdi qaala wuxuu yidhi liyuraajichahaa har soo rajciyo uma yumsikhaa ha haayo xataa tadhura ilaa ay daahir noqoto uma taxyada ay xaysho oo fatadhura ay daahir noqoto fain badaa lahu hadday u daahirto marka an yutalliqahaa inuu talaaqo daahiran ayadoo daahira ha talaaqo qabla an yamasahaa intuusan taabanin ka hor fatilka alciddatu taa waa ciddadii kamaa amara allahu caza wajala sida ilaahay uu amray subxaanahu watacaala yaa ayuha annabiyu idaa طallaqtum الnisaaa faطalliquuhuna liciddatihinna ciddadooda ku fura taasaa loola jeedaa ayuu yihi nabiga sala allahu calayh wasalam. wa fii lafdi kale wuxuu ahaa xataa taxyada xaydatan ukhraa ilaa dhiig kale uu ku dhaco oo mustaqbila kasoo socda ah siwa aan ahayn xaydatiha alatii طallaqahaa fiiha xaydkii uu ku furay mid aan ahayn inuu u yimaado. wa fii lafdin faxusibat min talaaqiha talaaqeeda waa loo xisaabay waraajacahaa cabdullaahi bni cumarna wuu soo rajciyey kamaa amarahu rasuulu llahi sida uu nebigu amrayba sala allahu calayhi wasalam. sida uu rasuulku amray wuu soo celiyey. xadiisku wuxuu tilmaamaa ciddada la tilmaamay in dumarka lagu furo waa nadiif ayagoo daahir ah oo markaa dhiig ka qubaystay ayagoon wax duquul ah ama wax jamaaca aan lagu samayn ama ayagoo xaamilooyin ah ila naagaha xaamilooyinka talaaqu waa ku dhacayaa. xadiiskii 324 can faadimata binti qays radia allahu canha ana abaa camr ibni xabsin ninka la dhaho ayaa طallaqaha furay albatata batad ayuu u furay waa si go-an. waa dalaaqii 3aad ayaa dhammaadaa loola jeedaa wahwa gaa'ibun asagoo maqan. intaa waxaa laga qaadanaa nin maqan inuu naagtiisa talaaqi karo. wa fii riwaaya warin kale waxay ahayd طallaqahaa 3 saddex ayuu furay waa dalqadii 3aad. fa arsala ilayha wuxuu u diray wakiilkiisa gabadhii wuxuu u diray bishaciirin waxoogaa shaciir ah waxoogaa mazagaa ayuu meel ugu shubay. markuu ugu shubay fasaqadatu way ka xanaaqday oo arintii waa caragelisay gabadhii. faqaala ninkii wakiilkaa wuxuu yidhi wallaahi maa laki calaynaa min shay allaan ku dhaartee wax aad nagu leedahay malaha intaanba min baabi ixsaan iyo wanaag ahaan ayaan kuu siinay. fajaءat rasuula allahi rasuulka allay u timid sala allahu calayhi wasalam fadakarat dalika lahu arintii ayay u sheegtay. faqaala rasuulku wuxuu yidhi laysa laki calayhi nafaqatun wax nafaqaa oo dushiisa aad ku leedahay malaha. wa fii lafdin wuxuu ahaa walaa sakanna markaa kuma lihid oo naagta batadka ah oo 3 dalqa ay ku dhacday lamid ma aha naagaha rajciyooyinka leh. naagaha rajciga leh sakan ayay leeyihiin nafaqo ayay leeyihiin laakiin dumarka haddii 3 dalqa ay dhammaato nafaqana malaha sakanna malaha. maca daalika waa haddaysan uur markaa lahayn. hadday uur leedahay waa suuragal inay nafaqa ku yeelato uurkaa ay markaa xambaarsan tahay. fa amarahaa wuxuu amray rasuulka gabadhii faadimo binti qays ahayd an tactadda inay ku ciddo tirsato fii beyti ummu shariik gabadha ummu shariik la dhaho gurigeeda ku ciddo tirso ayuu yidhi. uma kabacdi qaala rasuulku wuxuu dhahay tilka imra'atun ummu shariik waa naag yaqashaaha asxaabteyda ay daboolaan oo gurigeeda aad ay ugu hoomaane ictadii ku ciddo tirso cinda ibni maktuum cabdullaahi ibni ummu maktuum ninka la yidhaahdo agtiisa ku ciddo tirso oo gurigiisa ku ciddo tirso ayuu yihi nebiga. waayo fa inahu rajulun acmaa waa nin indhoolo ah. tadaciina waxaad dhigaysaa fiyaabaki dharkaaga way kaa dhici kartaa ku arki maayee fa idaa xalalti haddii ay xalaal noqoto ciddadu ay kuu dhammaatana fa aadiniini isoo ogeysii buu dhahay nebiga. qultu faadima waxay tiri falamaa xalaltu dakartu lahu markaan go-ay oo ciddadii ay ii go-day oo ay ii
dhammaatoon xalaaloobay waxaan u sheegay nebiga ana mucaawiyata bin abi sufyaan iyo wa abaa jahmin khataraani inay isoo doonteen. labadaa nin inay guur iga rabaan ayaan u sheegay, ciddadiina way ii dhammaatee, maxaan sameeyaa? faqaala rasuulullahi, rasuulkii ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, amaa abuu jahmin sow ma aha, falaa yadacu casaahu, usha kama dhiga can caatiqii, qoortiisii ha guursanin ayuu ii yiri. laba macno waa suuragal. waa nin kahiiru safar ah oo safarkiisu badan yahay oo aan nagaanayn inta badan oo in badan jidka ku jira waaye, sidaa darteed ha guursanin. amase waxaa loola jeedaa waa naaga garaacid badan yahay oo dumarka ayuu tumaa oo ushiisa waxay saaran tahay qoorta. wa amaa mucaawiya sow maaha, fa sucluug waaye, laa maala lahu, wax maala uu leeyahay markaa malaha, waa faqiiri, ha guursanin. ee ankixii usaamata bin zayd, usaama bin zayd guurso ayuu ii yiri bay tiri nebiga. fakarihtuhu, waan karahsaday. ilan usaama ibnu zayd waa wiil mataqaanaa addoomeede, inaan guursado ayaan karahsaday. uma qaala, intaa ka gadaal ayuu ii dhahay nebiga haddana, ankixii usaama bin zayd guurso. fanakaxtuhu, waan guursaday ayay tiri. fajacala allahu fiihi khayran, ilaahayna khayr badan ayuu ii yeelay. waqtabadtu, macnaha wuxuu noqday nin aada u sharaf iyo qiimo leh oo maca daalika khayr fara badan oo la majeersaday ilaahay uu iiga yeelay. baabulcidda, ciddadii baabkeedii waaye. xadiiskii 325 can subaycata alaslamiyata radia allahu canha annahaa kaanad waxay ahayd gabadhaa taxta sacd bin khawlata, hoostiisa. macnaha sacd bin khawla ayaa qabay, wahwa min bani caamir bin luway ayuu ahaa. wa kaana minman shahida badaran, wuxuu ka mid ahaa dadkii beder ka qayb galay. fatuwafiya canhaa, waa laga oofsaday xaggeeda oo waa dhintay fii xajati alwadaac. wahiya ayadoo xaamilun xaamilo ah. falam tanshab ma nagaanin oo maba daahinba. falam tanshab an wadacad inay dhigtay xamlaha uurkeeda, way dhashayba bacda wafaatihi, geeridiisa ka gadaal. falamaa tacallad, markay ka kor noqotay min nifaasiha, nifaaskeeda, tajammalad, way isqurxisay lilkhutaabi, khutaab iyo doonasho ayay isku qurxisay. fadakala calayha, waxaa u soo galay dusheeda abuu sanaabili, ninka la yidhaahdo bin backaki, rajulun waa nin oo min bani cabdidaar u dhashee. faqaala lahaa, wuxuu ku yidhi, maalii araaki, maxaa dhacay oon kuu arkayo mutajamilatun, aada mutajamilo aada u tahay, isku qurxisay. lacallaki, ma waxaa laga yaabaa tarjiini annikaaxa, inaad nikaax doonayso, inaad guursatad rabtaa miya? ayuu yidhi, wallaahi baan ku dhaartay, maa anta binaakixin, adigu matid mid nikaaxsanaysid, xataa tamura calayki, ilaa dushaada ay soo marto 4 ashhurin wa 10, 4 bilood iyo 10 beri. wallaahi xadaadkii asaada dhigi maysid, mana isqurxinaysid, mana guursanaysid ilaa 4 bil iyo 10 beri laga gaaro. qaala subayca waxay tihi, falamaa qaala lii daalika, markuu sidaa ii yidhi, jamactu calaya hiyaabii, dharkayga ayaan korkayga ku jamacsado, jilbaabkeygii ayaan xirtay. xiina amsaytu, markaan garabaystay. fa aataytu rasuula allahi, rasuulkii ilaahay ayaan u imid sala allahu calayhi wasalam. fasa'altuhu can daalika, arrintaa ayaan su-aalay. fa aftaanii, wuxuu ii fidyooday biannii anigu qad xalaltu, inaan xalaaloobay oo asaydii aan ka degay. xiina wadactu xamlii, markaan uurkayga dejiyey. wa amaranii bitaswiiji, wuxuu amray inaan guursan karo, in badaa lii, hadday ii muuqato, haddiiba aan rabo inaan guursado, inaan guursan karo ayuu nebigu ii baneeyey. xadiisku wuxuu tilmaamayaa ciddada naagaha laga dhinto oo haddana uurka leh, ciddadoodu inay tahay ilaa ay ka dhalaayaan. hadday mar uurka dejiyaan, ciddadii way u dhammaatay. naagaha la furayna waa lamid oo 3 bilood sugi maayaan, oo mar allaala markii uurka ay dhigaan ayay ciddada u dhammaanaysaa, sida ilaah tilmaamay subxaanahu watacaala. wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna, naagaha uurka u saaxiibkaa ciddadoodu waa inay uurka dejiyaan ayuu dhahay ilaah subxaanahu watacaala. ama ha ahaata naag la dalaaqay, ama ha ahaata naag mad la furay, ama laga dhintay, say noqotaba hadday uur leedahay, hadday uurka dejiso, asayri way ka degaysaa. 4 maalmood ka gadaal, ninkeeda dhimashadiisa ka gadaal hadday dhasho, waa u dhammaatay, uurkay dejinaysaa. nebigu waay amray bay tiri, oo wuxuu ii fidyooday, iina jawaabay inaan xalaaloobay, oon isqurxin karo, oo aan guursan karo haddii aan markaa rabo. qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi, walaa araa ba'san, anigu baasoo arki maayo, an tatasawaja, inay guursato xiina wadacad, hadday dhasho, wa in kaanad fii damiha, dhiiggeedaba ha ku sugnaatee, ayadoo dhiiggii nifaaska qabto 40kii aan u
go-in xataa way mehersan kartaa, hayra annahu laakin laa yaqrabuhaa zawjuhaa ninkeeda usoo dhowaan maayo xataa tadhura ilaa ay ka daahir noqoto. xadiiskii 326 can zaynaba binti umi salama radia allahu canhuma qaalad waxay tiri tuwafiya xamiimun, xamiim ayaa la oofsaday oo liummi xabiibata ummu xabiiba u sugnaa. riwaayad kale ayaa tilmaantay inuu aabbaheed ahaa abi sufyaan, fadacad waxay u wacatay bisufratin, sufro ayay u wacatay, waa geedka mtaqaanaa ay dumarku marsadaan ama weelka uu ugu jiro waxyaabahay dumarka isku carfiyaan. famasaxat waxay marsatay bidiraacayha labadeeda diraac, faqaalad waxay tiri inamaa asnacu haada, arrintan waxaan u sameeyey liannii samictu rasuula allahi, rasuulkii ilaahay ayaan maqlay yaquul asagoo dhahaaya laa yaxilu uma banaana liimra'ati naar tu'minu biاllaahi walyowmi alaakhiri, ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysay an tuxidda calaa mayitin inay meyd u asay qaadato fowqa 3 3 maalmood wax ka badan ilaa calaa zawjin ninka maahan oo 4 ashhurin و10 4 bilood iyo 10 beri markaa ah. xadiisku wuxuu tilmaamayaa nimanka asayga loo qaadanayo waa 4 bilood iyo 10 beri siday aayadu tilmaantay. dadka kasoo haray walaal, abti, adeer iyo wixii xamiim ahna 3 maalmood ayaa loo ogol yahay dumarka. xadiiskii 327 can ummu catiyata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa tuxidu imra'atu naag uma asay qaadan karto calaa mayitin mayd dhintay fowqa 3 3 maalmood wax ka badan ilaa calaa zawjin ninka maahane 4 ashhurin و10 waa 4 bilood iyo 10 beri. walaa talbasu thawban maro labisan mayso masbuuqan sibqi lagu sameeyey. marada masbuuqa ah waa marada sibqiga ah oo rinjiga ka dhaqmaaya, ilaa thawba casbin maro casbi ah maahane oo shakalkeeda lagu naqshadeeyey oo rinjiga iyo midabkeeda aan markaa dhaqmaynin. walaa taktaxilu may dhankuulan karta buu dhahay nebiga, walaa tamusu tiiban diibna taaban mayso iyo wax carfaaya ilaa idaa tahurad ilaa haddii dhiigga uu ka go-o ay daahir qaadanaysay ka qubaysanaysa dhiigga maahane. nubdatan gobol ayaa loo ogol yahay oo min qustin aw adfaarin shay udgaya markaa ah. alcasbi waa fiyaad oo min yaman laga sameeyo, fiiha bayaadun wa sawaadun oo madow iyo cadaan isku jira markaa ah. idan intaa waxaa laga qaadanaa dumarka dharkay rabaan inay ixdaadka iyo asayda ku qaadan karaan, qasabna aysan ahayn dharka cadcadkaa keliya inay markaa labistaan. wanubda ashay-u yasiir waa gobol yar, walqusd alcuud shayga cuudkaa loola jeeda ama waxa carfaaya, aw noocun min atiib ama waa nooc tiibka kamid ahoo tubakharu bihi nufasaa dumarka nufasaha ah ee dhiigga dhalmada qaba ay markaa ku bukursadaan amase isku carfiyaan. waladfaar waa jinsu min atiib, waa jinsi ama qeyb shayga udgoon ka mid ah. laa waaxidun lahu min lafdihi, lafdigiisana wax waxdi ah ma laha oo adfaar ayaa layska yidhaahdaa marka uu waxdi yahay iyo marka uu dhammaan yahayba. waqiila waxaa kaloo yidhaahdaa huwa catarun aswad, waa catar iyo shay carfaayo madow. alqudca minhu qidcatu gobolka oo minhu asaga kamid ahna adfaarka tashabaha adufur cijida ayuu eg yahay, sidaa ayaa adfaar markaa loo yiri. xadiiskii 328 can ummi salamata radia allahu canha qaalad waxay tiri jaaءat imra'atu naag baa timid ilaa rasuulillaah, rasuulka allay u timid sala allahu calayhi wasalam. faqaalad waxay tiri yaa rasuula allahi, rasuulkii ilaahayow, ina bintii gabadhayda ayaa tuwafiya canhaa zawjuha ninkeeda la oofsaday, waqad ishtakat caynaha indhahana way ka sheeganaysaa oo indhaha xanuunaya. afa nakxuluhaa mau indha kuuli karnaabay tiri. faqaala rasuulu llahi, rasuulka alla wuxuu dhahay laa maya 2 aw 3 kulu dalika yaquul 2 mar iyo 3 mar bay kusoo celcelaysay gabadhii. kulu dalika dhammaanna yaquul wuxuu dhahay nebiga laa. uma ka gadaal qaala wuxuu yihi inamaa hiya 4 ashhurin و10 waa 4 bilood iyo 10 maalmood. waqad kaanad waxayd ahayd ixdaakuna midii fi ljaahiliyati waqtiga jaahiliga tarmii mid la tuuro bilbacrati calaa ra'si xawlin, hal sana madaxeeda ayaa sidaa loo tuuri jiray. faqaalad waxay tiri zaynaba kaanat ilmar'atu naagtu waxay ahayd idaa tuwafiya canhaa zawjuha, haddii ninkeeda la oofsado zawjuha, dakhalat xifshan waxay geli jirtay xifshi. xifshiga waa beyt saqiir oo xaqiir ah, waa guri yar oo doqosh ah ayay gelaysay. walabisad waxay labisanaysay shara hiyaabiha, dharkeeda kan ugu xun. walam tamasa tiiban walaa shay-an wax ay taaban jirto wax udgaaya iyo saliid iyo wax ah
ah ma jiro xataa tamura calayha ilaa korkeeda sanatun hal sano ay soo marto uma kabacdi tu'tiya bidaaba daabad ayaa lala imaanayey ximaarin aw tayrin aw shaatin waxay noqotaba fataftadu bihi macnaha waa lagu daliigi jiray asaga faqalamaa waxaa yareed taftadu bishayin shay in la mariyo ilaa maata waa dhimanayey uma kabacdi takhruju way soo bixaysay fatucطaa bacratan fatarmiya bihaa markaasaa waxaa la siinaya bacra waa mataqaanaa digo fatarmi markaasay tuuraysay bihaa xaggiisa ama ayada uma kabacdi turaajicu bacdu way soo noqonaysay macnaha tuuritaanka ay tuurtay in meeshii laga soo baxay ayay tilmaamaysay maa shaaad intii ay doonto oo min tiibin tiiba ayay kusoo noqonaysay aw gayrihi ama wax lamid ah xibshu albeyt saqiir ayaa la dhahaa alxaqiir tadlug bihi jasadaha jasadkeeda ayaa lagu daliigi jiray ayaa markaa loola jeedaa marka licaankii kitaabkiisii waaye diinta islaamku waxa ay tilmaantay qofka haddii uu wax dhibaato ah ama zina uu sameeyo qofka marka la rabo in la karbaasho waa in 4 markhaatiya loo helaa sida ilaah tilmaamay subxaanahu wa tacaala 4 markhaatiya haddii loo helo intaa ka gadaal waxaa qofkaasi lagu samaynaa wax la yidhaahda jaldi oo hadduusan guur soo marin 100 karbaashood ayuu leeyahay haddii guur uu soo maro ayadana rajmi iyo dhagax ayaa markaa lagu dilaa marka waxaa suuro gashay haddana ama laisweydiiyey ninka naagtiisa haddii xumaan uu ku arko ayadoo laga sinaysanaya ayuu markaa arkay maca daalika mabaxa oo 4 markhaati muu soo raadina intii markhaatiyaalka uu ku maqan yahayna ninka meesha masii jooga xaaladaha ayaa nin su-aalay labadaa ninka iyo naagta haddii xumaan ay isku arkaan ama fuxshi ama zina naagtiisa uu ku arka ayaduna ay dhahda waa beentiis wax markhaatiina aysan markaa jirin xukunka lagu dhaqmo ayaa la yidhaahdaa licaan xukunka ayaan meesha ka gelaynaa xadiiskii 329 can cabdullaahi bin cumara radia allahu canhuma ana fulaani bni fulaani ninka la yidhaahda ayaa qaala yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow ara-ayta waxaad iiga warantaa loo wajada haddii uu helo axadunaa axadkeen imra'atahu naagtiisa calaa faaxishatin zina korkeeda kayfa yasnac suu samaynaa muxuu samaynayaa naagtiisa oo faaxisho ama zina ku jirta haddii markaa uu arko in takallama haddii uu hadlo takallama biamrin cadiimin amar cadiima oo weyn ayuu ku hadlay wa in sakata hadduu aamusana sakata calaa midli daalika wax laga aamusi kara ma ahan oo sidii oo kale ayuu ka aamusee muxuu samaynaa qaala wuxuu yidhi fasakata annabiyu nebigu waa ka aamusay ninkii jawaabtaa xun keenay sala allahu calayhi wasalam falam yujibhu mana u jawaabin ayaa la yidhi nebiga oo waa ka aamusay ileen arrintaa jawaab ayuu ka bixin waayey falamaa kaana markii la gaaray bacda daalika markaa kadib ataahu ninkii ayaa yimid faqaala wuxuu yidhi ina aladii kii sa'altuka aan ku su'aalay canhu xaggiisa qad ibtuliitu bihi anaaba laygu ibtileeyey buu dhahay markaan ku su'aalay ka gadaal oo aan kaa tegay gurigaygiina aan tegey ayaan arkay arrintii aan ku su'aalayay naftigeeda naagtayda oo markaa sinaysanaysa maxaa sameeyaa xadiisku waa gaaban yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi 4 markhaati la imow haddii kale jaldi usoo diyaargarow 4 markhaatiya la imow ayuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam sida ilaah tilmaamay waaladiina yarmuuna almuxsanaati huma lam ya'tuu b4 shuhadaa fajliduuhum 80 jaldatan 80 ulku dhufta buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala ninkii naag inta xumaan iyo zina ku sheega 4 markhaati la imaan waaya 80 karbaasho ayuu leeyahay dabarkaaga usoo diyaargarow ayuu dhahay nebiga karbaash haddii kale 4 markhaati la imow rasuulkii ilaahayo maxaa sameeyaa buu dhahay 4 markhaati xaggee ka keenaa wallaahi runan sheegaa nebiga afkiisa waa laga waayay hadal aan ahayn xad ayaa korkaaga ahaaday haddii kale 4 markhaatiya la imow isagoo xaaladaa ku jira ayuu fa anzala allahu caza wajalla ilaah wuxuu soo dejiyey haa-ulaa'i alaayaat oo fii suurati annuur waaladiina yarmuuna aswaajahum
walam yakun lahum shuhadaa'un ilaa anfusihim fashahaadatu axadihim 4 shahaadaatin billah. aayaddaasuu ilaah soo dejiyey waaladiina kuwa yarmuuna ku sheegaya zinada aswaajahum naagahooda ku tuuraaya walam yakun lahum shuhadaa markhaatina aan haysanin ilaa nafafyaalkooda maahane fa shahaadatu axadihim 4 shahaadaatin billah. mid kastaa waxaa markhaati u noqonaysa 4 dhaarood oo ilaahay uu ku dhaarto subxaana wa tacaala. midda shanaadna buu dhahay ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa ninka inay ilaahay qadabkii in imtiqaanaa ilaahay caradiisay korkiisa ahaanayso. sidaa ayuu ku dhaaranaa 5 dhaarood. ayaduna haddii sidaa uu u dhaarto ay dhahdo waa runtiis bacdamuu dhaartay ayadu waa la jeldina oo waxaa macnaha waa la jeldina oo dhagaxa lagu dilaa ilan guuray soo martay. haddii saas uu u dhaarto ay dhahda waa beentiis waxna ma jiro xataa arrinta ha jirtee ay dhahda waa beentiis waxaan uu ku dhaartayna waa been, ayadana cadaabku waxay isaga difaaci kartaa sida ilaah tilmaamay 4 dhaarood oo ilaahay ay ku dhaarato iyo midda 5aad oo ah anna gadaba allahi calayha in kaana min asaadiqiina. ilaahay qadabkiisa iyo caradiisa iyo xanaaqiisa korkeyga ha ahaada haddiiba run uu sheegaayo. sidaa ayay samaynayaan labadooda, wayna kala tegayaan. hadday adduunka isku soo haraan labadooda ma isku soo noqsan karaan mar kale. saasaa diinta islaamka iyo axkaamtu ay tilmaamaysaa. marka ilaahay aayaddaa buu soo dejiyey oo ninkii looga dhaafay waxyaabaha iyo karbaashkii markaa lagu samayn lahaa. waaladiina yarmuuna aswaajahum kuwa sawjooyinkoodii naagahooda ku ridaya zinada fatalaahunna waa ku akhriyey ilaahay nebiga calayhi ninkii korkiisa wawacadahu waa wacdiyey wadakarahu waa xasuusiyey wa akhbarahu wuxuu u sheegay ana cadaaba addunyaa ahwana min cadaabi alaakhira. cadaabka adduunka inuu ka jilcan yahay cadaabka aakhiro. wuxuu yidhi nin yahow haddaba cadaabkan aakhiro ayaa ka fudud ee gabadhan haddaad beenka sheegaysid ha lagu karbaasho, ilan cadaabka aakhiro ayaa markaa ka weyne. faqaala wuxuu dhahay laa waaladii bacahaka bilxaqi maya ayuu yidhi macbuudkii xaqnimo kugu soo bixiyey nebiyan adigoo nebi ahee maa kadabtu calayha maka been sheegayuu dhahay, runtay waaye. uma kabacdi dacaahaa iyaduu u wacay wawacadahaa waa wacdiye nebiga wa akhbarahaa wuxuu u khabray ana cadaaba addunyaa ahwanu min cadaabi alaakhira, cadaabka adduunka inuu ka fudud yahay cadaabka aakhiro. faqaalad waxay tidhi laa maya waaladii bacahaka bilxaqi ayaan ku dhaartaye inahu lakaadibun beentiis waaye. wax zina ah oo aan sameeyey ama uu igu arkay markaa ma jiro. labadoodiba nabadooba waa is-anfiyeen. fabada'a birajuli ninka ayuu ka bilaabay nebiga fashahida wuu dhaariyey 4 shahaadaatin billah 4 dhaarood ayuu alla ku dhaariyey inahu la min asaadiqiina inuu kuwa runta sheegaya ka mid yahay. waalkhaamisata midda 5aadna ana lacnata allaahi calayhi nacalada ilaahay inay korkiisa ahaanaysa in kaana min alkaadibiina haddiiba uu beenka sheegaayo. ilaahayow haddiiba gabadhan aan masabidanayo oon beenka sheegaayo oon bizina ku arkin buu leeyahay nacaladaada korkeyga ha ahaato. markuu sidaa yidhi uma sanna wuxuu ku xijiyey nebiga bilmar'ati naagtii fashahidad way dhaaratay 4 shahaadaatin 4 dhaarood ayay bilaahi alla ku dhaaratay inahu la min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu ka mid yahay. waalkhaamisata midda 5aadna ana gadaba allaahi calayha carada ilaahay inay korkeeda ahaanaysa in kaana min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddii markaa uu yahay. ilaahayo kanba haddii runtiis ay tahay uu zinada igu arkay qadabkaagii xanaaqaya korkeyga ha ahaado. saasay labadoodaba u dhaarteen licaan ayaa la yidhaahdaa xukunkaa. uma faraqa baynahumaa wuu kala dhaqaajiyey nebiga sala allahu calayh wasalam, waa la kala fogeeyey, waa la kala furay. uma qaala wuxuu yidhi allaahu yaclamu nebigaa dhahay ilaahay ayaa og ana axadakumaa kaadibun labadiina mid kamida inuu been sheegayo ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala. ee fahal minkumaa taa'ib wax tooba keenaya ma idinku jiraa. 3 mar ayuu ku soo celceli. war cadaabkan adduunka dhib ma laha, war cadaabka aakhira ka daran, qadab ilaahay iyo lacnad ilaahayd isku habaarteen, war qof tooba keenaya ma idinku jiraa. waa aamuseen. wa fii lafdi kale wuxuu ahaa ninku wuxuu dhahay laa sabiila laka calayha wax jid ah ood ku leedahay ma laha.
faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah maali, xoolahaygii aaway meherkaan siiyey. qaala wuxuu dhahay nebiga laa maala laka, wax xoolood ku leedahay ma laha. in kunta sadaqta calayha, haddaad ka run sheegto zinada aad ku aragtay, fahwa bima staxlalta min farjiha, waa waxaad farjigeeda ku banaysatay waay, idan in badanaad ku raaxaysatay. wa in kunta kadabta calayha, haddaad ka been sheegtayna, fahwa abcadu laka minhaa, way kasii fogaato badan tahay xaggeeda, wax xoolood ku leedahay ma laha. rasuulka sala allahu calayhi wasalam, weliba shariik bin samxa ayaa la dhahayay ninkii lagu qadfay oo la yidhi ninkaasaa ka sinaystay. rasuulku wuxuu dhahay iisoo fiiriy canuga ay dhali doonto. canuga ay dhashay ayaa wuxuu u ekaaday ninkii lagu qadfay. rasuulku wuxuu dhahay xukun ilaahayaa hormaray maahane, anii ayada beenkeena wuxuu ahaan lahaa sha'ni. marka xaaladaa waxay tilmaamaysaa ninka iyo naagtiisa hadday zina isku arkaan oo ninka uu saa yidhaahdo, naagtuna ay markaa dafirto, wax la karbaashay iyo wax la dilaya ma laha, dhaartaasay markaa ku kala baxayaan, waana la kala furaa, wax kanboo isku soo noqod ahna markaa ma laha. xadiiskii 320 wa canhu wa cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhuma ana rajul nin baa ramaa ku gamay imra'atahu naagtiisa, way zinaysatay buu dhahay. waintafaa min waladihaa, waladkeedana waa iska anfiyo, canugan caloosha ku jira mabalihi buu dhahay aniga. fii zamaani rasuuliillah, zamanka nebigay ahayd sala allahu calayhi wasalam. fa amarahumaa, wuxuu amray rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam inay is-inkaaraan, ay talaacan sameeyaan. fatalaacana, way habaartameen labadoodaba, kamaa qaala tacaala, sida ilaahay yidhiba waa aayadii aan soo marnay. uma kabacdi qadaa, wuxuu u xukmiyey nebiga bilwaladi, wiilkii lilmar'ati naagta. adaa la yidhi qaado, adaa iska lehe. wafaraqa bayna almutalaacinayni, labadii mutalaacinaynta ahaa oo islacanadayna markaa waa la kala fogeeyo, waa la kala farqiyey. xadiiskii aan soo tilmaanay oo kala waayo, sida ayaa la samaynaa haddii uur uu jiro oo uurkaasi uu anfiyo, hooyaa markaa loo leexinaa dhankeeda. ayadaa markaa qaadanaysa xadiiskii 331 can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa'a rajulu, nin baa yimid oo min bani fazaara u dhashay ila annabiyi, nebiga ayuu u yimid sala allahu calayhi wasalam. faqaala wuxuu yidhi ina imra'atii, naagtayda, waladad waxay dhashay ghulaaman, canug aswada oo madow, ani iidana waa cadlahay buu dhahay. marka nin cunug madow ayay dhasho, meesha shakiya iga galay waayo. faqaala annabiyu, nebigu wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam, ninka geeley buu ahaa, hal laka ibilun, geel ma leedahay? qaala wuxuu dhahay nacam, haa waa leeyahay. qaala wuxuu yidhi famaa alwaanuhaa, midabkooda see waaye? qaala wuxuu yidhi xumrun, waa geel gadgaduudan waaye. qaala wuxuu dhahay nebiga fahal fiiha min awraqa, mid awraq ahoo cawran ma ku jira, midabka carada oo kale leh? qaala wuxuu yidhi ina fiihaa lawurqan, haa waa ku jira. ina fiihaa gudihiisa lawurqan, mid awrqan waa ku jira oo midab boorboor ah markaa leh. qaala wuxuu dhahay nebiga fa annaa ataaha daalika, xagguu uga yimid buu dhahay, geelaagu waa gadgaduudan yahay. qaala wuxuu yidhi casaa, waxaa la arkaa an yakuuna nasacahu cirqun, inuu cirqi kasoo siibtay. hashii mtaqaanaa hashaan geelii abaahiyey, kii kasii horeeyey odaygii kale inuu cawrnaa ayaa dhici kartuu dhahay ninkii. wa qaala rasuulkuna wuxuu dhahay wahaada canugaanna casaa, waxaa la arkaa an yakuuna nasacahu cirqun, inuu cirqi kasoo siibtay adeerkiis ama abkoogii kii kale inuu saas ah ayaa dhici karta buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. orod qaado, shakigana dhaaf. sidaa ayuu nebigu u diray ninkaas sala allahu calayhi wasalam. xadiiskii 332 can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri ikhtasama, waxaa dooday sacad bin abi waqaasin iyo wa cabdullaahi bin zamcata fii ghulaamin, ghulaam ayay ku doodeen canug. faqaala sacd wuxuu yidhi yaa rasuula allah, haada ibnu akhii, walaalkay canugiisa waaye. cutbata bin abi waqaas oo walaalkay ah ayaa dhalay buu dhahay canugan. cahida ilaya, anuu igala ballamay intuusan dhimanin, annahu ibnow, inuu canugiisa yahay. undur fiiri ilaa shabiihihi, siduu uu eg yahay walaalkay fiiri, adeerkeeda adeeraanu ahaye. wa qaala cabdullaahi bin zamca wuxuu yidhi haada akhii, walaalkay waa canugan yaa rasuula allah, rasuulkii ilaahayow. welida waxaa lagu dhalay calaa firaashi abi, aabbahay firaashkiisa, min waliidatihi, waliide iyo naag addoona uu lahaa aabbahay ayaana dhashay buu dhahay. fanadara rasuulullaahi, rasuulku waa fiiriyey sala allahu calayhi wasalam ilaa shabahihi, ekaashihiisa uu sacad u eg yahay walaalkii ayuu nebigu fiiriyey. fara'aa wuxuu arkay shabahan
bayinan inuu si cad ugu egyahay bicudbata, cudba oo sacad walaalkiis ah, laakiin looma xukminin. faqaala wuxuu yidhi huwa laka yaa cabdu bin zamcata, adaa iskale cabdi bin zamcow, alwaladu canuga lilfiraashi, firaashka ayuu u sugnaado ninka firaashkiisii xarigiisa lagu dhalaa iskale, walilcaahiri zaanigana alxajaru, dhagax ayuu leeyahay buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. xukun cajiib badanaa dhacay haddana. waxtajibii, ka xijaaba minhu xaggiisa yaa sawdatu, sawday canugan ka xijaabuu dhahay nebiga. falam yara sawdata qatun, weligeed ma arkin ninka. xadiisku wuxuu tilmaamayaa cabdullaahi bin zamca iyo sawda bin zamca waa walaalo, ayagaa loo xukmiyey, waa walaalkeed, haddana ka xijaabuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. idan shakiyaa ku jira meesha. waxaa dhacday ninkaa la yidhaahdo cudba oo sacad la dhashay ayaa wuxuu ka zinaystay cabdullaahi bin zamca aabbihii, weliidadii uu markaa lahaa ayuu ka zinaystay, uuray u qaaday. cudba waa dhintay, maca daalika sacad ayuu kala ballamay, uu yidhi ninkaas naagtaas canuga ay dhali doonta ana iskale, adeeraadna u tahay markaa iisoo qaad. saasuu markaa yidhi cabdullaahi bin zamcana aabbihii ayaa mataqaanaa weliidadiisa ayaa markaa dhashay. marka xadiiska waxaa laga qaadanaa haddii naag aad qabto, naagtaada laga sinaysto, uur ay yeelato, maca daalika canuga waxaa lagu dhalay firaashkaaga, alwaladu lilfiraash, firaashka ayuu u sugnaaday buu dhahay nebiga sal allau alayh wasalam, adaa lagu xukminaa. caahirka iyo ninka zaanigana dhagax ayuu markaa leeyahay. cajiibta meesha taalla waxay tahay rasuulku waa arkay canugan inuu cudba u eg yahay, laakiin waxaa loo xukmiyey cabdullaahi bin zamca loo xukmiyey. cabdullaahi bin zamca waxaa la dhashay sawdata binti zamca, maca daalika sawta nebigaa qaba. bacdama ayaga loo xukmiyey cabdullaahi bin zamca waxaa la yidhi aduu kuu sugnaaday ee qaado, waayo faqaala rasuulku wuxuu yidhi huwa laka yaa cabdullaahi bin zamca, cabdullaahi bin zamca iyo sawda binti zamca waa walaalo. maca daalika rasuulku wuxuu dhahay sawday ka xijaaba canugan, bacdamaa loo xugmiyo walaal ahaan loogu xugmiyey, haddana way ka xijaabanaysay. sababtu waxay tahay waa shaki meesha, waxaa loogu xugmiyey keliya weladka firaashka markaa lagu dhalay. marka canuga sidiisaba firaashka ayaa markaa la waafajiyaa. xadiiskii 333 can caaishata radia allahu canha annahaa qaalad waxay tiri ina rasuula allahi, rasuulkii ilaahay ayaa daqala soo galay calaya korkeyga u soo galay masruuran asagoo faraxsan rasuulka, oo tabruqu ay ifaysa asaariiru wejhi, wejigiisa asaariirtooda. asaariirta meelahaasaa loola jeedaa, maca daalika meesha ka iftiimayso ayuu soo galay aad u faraxsan. faqaala wuxuu yidhi alam taraa, miyaadan arkin caaishay anna mujazaran ninka la dhaho nadara aanifan inuu hadda fiiriyey ilaa zayd ibni xaarifa iyo wa usaama ibnu zayd, oo faqaala uu yidhi ina bacda haadihi alaqdaam, lugahan qaarkood qaarka kale, liman bacdin buu ka ahaaday. ina bacda haadihi alaqdaam, gondooyinkan qaarkood lamin bacdin, qaarka kale ka ahaadeen, macnaha luga isdhalay waaye. saasuu markaa yidhi. wa fii lafdin wuxuu ahaa wa kaana mujazarun qaa'ifan, qaa'if buu ahaa. qaa'if waa sinjidayaa la dhahaa. dad waxaa jira cajiib lahoo dadka markay magaalada soo galaan dadaysa arkin farahay ka fiirinayan cijiyaalka, wixii walaalo ah waa issheegayaan, wixii isdhalay waa issheegayaan, cijiyaalka iyo lugaha iyo meelahaasi dadka ka fiiriyaan. sinjidayaa la yidhaahdaa. nebiga aad ayuu ugu farxay, sababtu waxay tahay zayd ibnu xaarisa wuu madoobaa, usaama ibnu zaydna waa caddaa. dadku way xaman jireen oo waxay dhihi jireen zayd usaama maba dhalinba. maca daalika waa labadii qofood ee nebiga aad uu u jeclaa sala allahu calayhi wasalam, ayadoo murugtaa ay jirtaa maalin maalmaha ka mida ayagoo jiifa, weliba wejigay ka daboolnaayeenaa la yidhi, lugaha keligooda bannaanka u yili wiilkii aabihii. waxaa soo galay ninkaa oo mujazar la yidhaahdo. maca daalika wuxuu ahaa sinjidaye, luguhuu fiiriyey, wuxuu dhaha labadan lugood way isdhaleen, waa wiilii aabihii, weligiisna ma arkin, wejigana waa u daboolnaa oo wejigoodii ma arkin. maca daalika rasuulku aad ayuu ugu farxay arrintaas salawaatu ullahi wasalaamu calayh. xadiiskii 334 can abi saciidin alqudriy radia allahu canhu qaala wuxuu yihi dukira waxaa lagu xusay alcazlu, casliga waxa la yidhaahdo. casli waxaa la dhahaa ninkuu naagtiisa u taga ama weliidadiisa, mar allaal inay uur qaadana ma rabo, mar allaala markay biyaha kasoo dhow yihiin wuu kasoo bixinaa, dhulkuu ku daadinaa. arrintaasaa nebiga lirasuulillaahi loo sheegay. faqaala wuxuu dhahay nebiga walima yafcalu axadukum, axadkiin muxuu u samaynaa, macnaha
iclamuu iska dhaafuu ka wadaa walima yafcal walam yaqul ma dhihin falaa tafcal daalika axadukum axadkiin arrintaas yuusan samayn ma dhihin hadduu dhihi lahaa falaa yafcal daalika axadukum xaaraan bay ahaan lahayd laakiin wuxuu yidhi walam yafcal ayuu dhahay nebiga ee macnaha walima yafcalu muxuu u samaynaa macnaha hadduu sameeyo dhib ma laha laakiin muxuu u samaynaa buu dhahay nebiga fa inahu laysat ma jirto nafsun naf makhluuqatun la qalqayo ila allahu khaaliquhaa ilaah baa qalqaya subxaana wa tacaala dhibicdaa biyaha haddii loogu talagalo ama ha laga siibo ama ha lagu daadiyo haddii dhagax lagu daadiyo ilaa uu ugu talagalo inay owlaad ka samaysmaan way ka samaysmayaan buu dhahay sala allahu calayhi wasalam ow kamaa qaal marka taa waxay tilmaamaysaa in casliga uu wax jira markaa yahay sida riwaayadaha soo socda ay markaa tilmaamayaan laakiin waxay dhahaan culimmadu hadday ama tahay oo ninka addoon asaga uu leeyahay ay tahay wax dhibaataa ma laha ama hadday naag xor ah tahay uu soo guursado oona rabin inay uur u qaado maca daalika arrinta noocaasiyo casliga ku samaynteeda waxay ku xiran tahay idinkeeda hadday u fasaxdaa dhibaato ma laha haddii kalena mamnuucay ka tahay saa way yidhaahdaan culimmada laakiin wax mashaakila kuma sugna xadiiskii 335 can jaabir radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi kunnaa naczilu waan ka siiban jirnay dumarkeena oo biyahan dhulka uga daadin jirnay waalqur'aanu yanzilu qur'aankuna waa soo degaayey marka aan saas yeelayno qur'aan baa soo degaayay ilaahay wax ma mooga subxaana wa tacaala inaan arrintaas samaynayna waa og yahay qaala sufyaan wuxuu ihi low kaana shay-an yunhaa canhu shay layskaga reebayo hadduu jiri lahaa lanahaana canhu lqur'aana qur'aankaa naga reebi lahaa aayaddaa soo degi lahayd casliyaan la samaynin markaa dhahaysaa maca daalika riwaayad kale ayuu nebigu ku tilmaamay waa wu'di qarfiyaca waa ilmaha la duugay oo qarsoon saana markaa way tilmaantay ama mataqaanaa xaaladaha noocaas oo kale ah say ahaataba wax mashaakila kuma sugnaa laakiin mar walba ma wanaagsana arrimooyinka ee waxaa fiican waxyaaba markaa la isku waafaqsan yahay xadiiskii